aan malaysan waayey inay ka dhici karaan midnaha dhul Soomaaliyeed ama dunida aan ku nool waxaan u qaatay markii hore filmadan Mareykanku ay sameeyeen Hollywoodka ilan waaba qarax ka dhacay waa qaraxii ugu weynaa ee dhaca oo dad inta leeg ay ku dhintaan aad baan ula yaabay waa malaysan kari waayey 6 sano ayaa ka soo wareegtay Masar Jaamacna waa uu soo booqdaa goobta si uu u xasuusto wixii dhacay maalinta iyada waxay ahayd maalin farxada maalin waalidiintu iyo ardaduba ay soo xirteen dhar la xirto waxa ugu qurxoon maxay yeelay waa dhaqaatiir Soomaaliyeed ayaa qalin jabisay doonayay inay minaha mustaqbalkooda ay ummadda wax u qabtaan waalidiintii soo korisanaya wax tiraan waxa la ii sheegay in hooyo kamid ah arurta mar waraysi laga qaadahayay ay tiri waxaan ku soo koriyay canjeero aan tasbiix dubaan banaanka ka iibiyo inta waxa ka soo iga soo galan wiilkaygi dhintay Allah u naxariistay ayaan jaamacadda uga saaray marka waad garan karaysaa murugada iyo dhibka ay leedahay ilmo yaro sida lagu soo koriyay nolosha islaha ana waaridkuna lahaa ka saaro nolosha silaca oo dhibka badan ay ku jirtay isaguna mustaqbal ha yeesho in marun amar Ilaahay ku dhacdo hadii naf walba saacad ay dhimanayso waa iska qoran tahay waxba lagama qaadi karo dataa wada rabi bay ahayd balse waxay maalinta quruxda badan oo naxdinta ku dhamaatay dhimashada iyo burburkaas waxa ay saameyn ku reebeen Cabdi Shire isagoo daawanaya dhacdadaas foosha xun ayaa erayo suugaaneed ku soo dhaceen kuwaas oo ka caawiyay dad badan oo Soomaaliyeed in ay ka bogsadaan murugada weerarkaas oo ay goobjoog u ahaayeen waxaan maqlay marka qaraxii lala beegsada ardada ayaan maqlahay waa ka tagay qol computer yaalo ayaan galay computerkii baan ku bilaabay inaan minaha iska qoro qalqal nagu beer qaraxii lala beegsaday ardadii qalin jabinaysay qasaaraha na gaaray waa mid aan qiil loo ahay sida ay ahayd heestu waxaan xustaa ku caasumay hadda sanadka 2013 kooxda Qeeladhaan dhowr jeer baan geeyay fanaanin ka tirsan magaalada Xamar aqlaga waa diidahay ciidamadii baan xataa dhex geynay oo fanaanintii aan u geeyay ilaa ciidamadii loogu tababaray dadka cadawga xabad ku ridaan ay dhulka ku wada daateen wada ooyeen suugaanta iyo dareenka markaan qalbigooda xantateynay heesta Qeeladhaan waxa ay noqotay mid caan ah waxa ay ka caawisay dad badan oo Soomaaliyeed in ay iskala qabsadaan falkan foosha xun waxa ay sidoo kale bilow u noqotay mihnada suugaaneed ee Cabdi Shire 48 saac gudaheedna heestii baan ku soo saarnay marka Qeeladhaan sida ay ku timid wixii inta ka dambeeyana markaan soo saaray ayaa 24 saac dabadeed waxa la ii soo diray taxiyo hadii Ilaahay ku idmay fariimo adigu kumaankum aqligaagu diidayo ummadda Soomaaliyeed ay igu dhiiri gelinayaan iguna boorinayaan wixii aan sameeyay wax fiican ahaayeen